rabshadaha ka socda dalka Kenya ayaa mar kale dib uga biloomay gudaha dalka Kenya. Boqolaal dadyow Kenyan ah oo cadhaysan ayaa ku mudaharaadaya wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah caasimadda dalka Kenya ee Nairobi iyo suuqyada ganacsiyada ee caasimadda dalka. Waxaa jira ciidamo tirabeel ah oo kuwa u tababaran ka hortagga rabshadaha iyo farqaladaha dalka Kenya ka dhaca, kuwaas oo isla waaberigiiba u diyaarsanaa rabshadaha la filayay in ay saaka dib uga curtaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Dhanka kale, mudaharaadyadaan ayaa waxa ay ka socdaan gudaha dalka Kenya sida Kisumu, Nakuru, Eldoret iyo Mombasa, kuwaas oo isla maantaba ay dib uga bilowdeen mudaharaadyadaasi. Waxaa gebi ahaanba xidhmay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee ka jiray gudaha dalka Kenya iyo socodkii dhawaanahanba Kenya waxaa ka aloolsanaa mudaharaadyo waaweyn oo u muuqda kuwa siyaasadeed, isla markaasina ay hurinayaan siyaad. Saaka ayay ahayd kolkii uu xaqiijiyay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto in ay mudaharaadyadani ay yihiin kuwa abaabulan, isla markaasina ay gacan ka geysanayaan qaar ka mid ah xusbiyada mucaaradka ee ka dhisan dalka. Madaxweynaha dowladda Kenya ayaa marka uu arkay xaaladda cakiran ee sii adkaanaysa ayuu kulan la tashi ah isugu yeedhay xusbiyada dalka ka jira si wax loogala qabto xaaladda cakiran ee sii adkaanaysa ee ka socota dalka. Maanta waxaa dib u qarxay mudaharaadyo waaweyn. Waxaa la arkayaa banaanbaxyaasha oo wada mudaharaadyo, sidoo kalena ay dhinac socdaan boob iyo lunsasho hantiyadeed, kuwaas oo ay geysanayaan qaarkood goobaha ganacsiyada Soomaalida Kenya oo kuwa aad loogu cabsanayay, isla markaasina mid ka mid ganacsiyada ugu waaweyn ee ka jira gudaha Kenya ayaa ammaankooda aad loo adkeeyay. Waxaana jirtay cabsi xoogan oo ku qotonta in bartilmaameedyadu ay yihiin kuwa ku wajahan Soomaalida, maadaama ay mudaharaadayaashu ay qaarkood ku dhawaaqayaan in ay barakicin doonaan Soomaalida iyo ganacsigoodaba. Weli waxaa sii socda sidii looga hortagi lahaa rabshadahan sii xoogaysanaya ee guud ahaanba ka socda qaar ka mid ah gudaha dalka Kenya. Sharmaarke Mahdi Cabdi, Wama TV.